بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون halkan waxaan ka tacsiidinayaa dhammaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan eheladii ay ka geeriyoodeen dhalinyaradii aan waxba galabsan aan hubka sideen ee gacan ka xaqdarani ay dishay waxaan leeyahay Ilaahay samri iimaan haydiga siiyo dhammaan waalidiintii ee ubadkaasi ka dhinteen dhammaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Ilaahay waxaan uga baryayaa dhammaanteen in Ilaahay samri iimaan naga wada siiyo waxa halkan iyagana aan Ilaahay uga baryayaa intii ku dhaawacantay iyaguna dhaawac ka soo gaaray ee maanta dhaawaca u jiifa waxaan la Ilaahay nabar xaqdaro Allah idiga dhigo caafimaad saracana Allah idii siiyo inta hadii aan ka gudbo ruuxantii hore ayaan uga hadlay hore ayaan uga degnay balse xukuumadda talada maanta haysa ee hore aan u sheegnay waxay dhabada haysa wadadii kaligii talisnimada oo haatan cadaysatay una bareeday si bareeda in shacabka u leyso waxaan nasiib daro ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sida shucuurnimo ee sida dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland daroonkooda ugu muujiyeen ay ugu soo saareen fartooda iyadoo dhiig loo daadin oo isagu maanta uu ku bedesho inuu xabad la dhaco shacab aan waxba galabsan una soo baxay inay ka mudaharaadaan xuquuqda ay asaasiga ay ku leeyihiin Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dastuurkuna u asteeyay balse maanta dadka meesha ku waxyeelooday ambaba ku dhintay ambaba ku dhaawacmay waxa qaadan doona eedooda xukuumadda maanta talada haysa oo u horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland laana waxa la yiri madax meel ka sareysta oo la taabtaa ma laha madaxweynaha waxaan ka sugaynay ambaba Jamhuuriyadda Soomaaliland case to case ay uga fadhiyeen inuu maanta uu ka tacsiideeyo amaba uu ka garaabo wixii Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacay balse tii laga filiyay muu sameynine waa nin yaadadii baa la yiri nin meel u hilaacayso meel u madow madaxweynaha ruuxantii hada waqtigiisu gabaabsiga yahay waxa uu hilaacaya dhiigga shacabka balse noqomayso mid aad ku sii tiiqtiiqsato qof walba wuxuu shaqaysto ayuu guntiisa ka helaya anigoo hadalka sii dheeranaynin shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan xisbiga doonto taageer balse maanta inta tiiqtiiqsiga wada waxaan leeyahay balaayo mar ay ka maqan tahay iyo mar ay kugu soo maqan tahay ka maanta dhintay amba baa ku dhaawacmay shacabow amba waa walaalka amba waa saaxiibka amba waa qof kula dhiiga oo muslina balse gacan ka xaq darani ay dishay qof si shucuur leh si nabada u mudaharaadaya in xabada kala hortaga hadii aad maanta aad garatay inaad ku tiiqtiiqsato ama baad ku qosasho ruuxantii waa mid adigana maalintaadu ku sugaysa ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanku iskuma jiro horaan u sheegay balse ciidankii qalaasaha geystay ama xabada shacabka la dhacay mid waa mid aakhirada taala oo maanta aanu idiga badbaadin doonin hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu wasiir yahayba hebel baana soo diray waa mid qiyaamaha ku taala waa talabaad ciidana reer baad ka dhalateen nin kasto nin dilay ogow reerkiisa ku xisaabtami doona waxaan ku soo gunaaniday hadalkayga xukuumadda taladeedu gabaabsiga tahay waxaan leeyahay ku seexda oo ku soo toosa dalkan inaanay ka dhici doonin wax la yiraahdo kaligii talisnimo ama boqortooyo gacan bira ayaa laga hor iman doona maanta waxa cadaatay wixii aad u soo dagaalanteen aad u soo xoriyada u soo dhimateen in intiinaas ay ka been ahayd ay ahayd ragii halyeeyada maanta u soo dagaalamay yihiin kuwa saxda ah maanta godka ku jira inta maanta noolna waxa la waraa ka aamusanine ka hadlanlay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh